بسم الله الرحمن الرحيم داوديال halkan waa xogta dalka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga waxa qayb ka ah madaxweyne Farmaajo oo dabin siyaasadeed u dhigay qaar kamid ah midowga musharaxiinta madaxweynayaal hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo si toos ah u sheegay in aysan wada hadal la galin madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaar kamid ah xildhibaanada hawiyana waxa ay sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin General Saadiq John geesta kale magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa laga dareemayaa saansaan colaadeed iyo hub aruursi senator Muuse Suudi Yalaxow waxa uu soo bandhigay tiro ciidan ah iyo sidaas oo kale gaadiid dagaal oo aad u fara badan waxa uuna sheegay in uu garab taagan yahay midowga mucaaradka gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar ayaa waxa lagu eedeeyay in uu difaacay Saadiq John waxaana la sheegayaa in ay jiraan weeraro la qorsheeyay kuwa oo la doonayo in lagu qaado gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar daawadayaal intaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobadii ugu door corona warkayaga halkan waa janalka xogta dalka haddaba hadii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee aad soo booqato halkan waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furto sidaas oo kale daawaday muuqaalada aynu ku soo gudbinayno waad u sii share gareyn kartaa asxaabtaadu si sidaada oo kale ay kaga bogtaan halkan waa xogta dalka madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa la sheegay in daban siyaasadeed oo la damacsanay qaar kamid ah midowga musharaxiinta waxaana lagu eedeeyay in madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo sidaas oo kale galmudug maxamed cabdi kaariye qoorqoor iyo sidaas oo kale cali guudlaawe xuseen in uu irga ka dhigtay isla markaana uu u diray madaxweynayaal hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo sidaas oo kale Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in uu markaasi uu kaga baahan yahay in labadaasi madaxweyne iyo sidaas oo kale qaar kamid ah midowga musharaxiintu uu madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wada hadal la galo qaar kamid ah dadka siyaasadda falanqeeyo waxa ay sheegayaan in taasi ay ahayd dabin siyaasadeed isla markaana uu la damacsanaa madaxweynayaal hore iyo sidaas oo kale qaar kamid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale madaxweynayaal hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si toos ah waxa ay u sheegeen in aysan wada hadal la galin madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna cali guudlaawe iyo sidaas oo kale qoorqoor u dhiibeen hadal aad u taabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in aysan marnaba wada hadal la galin aysan diyaar u ahayn in ay wada hadal la galaan kulankaasi waxa qayb ka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in gabi ahaanba wixii wada hadal ah ay soo xirmeen maalintii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu ka furtay boorarkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qayb ka ahaa kulamadaasi ayaa wax uu sheegay in uusan haatan diyaar u ahayn in wax wada hadal ah uu la galo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waan iyo wada hadal la ay furnaayeen intii uu madaxweyne Farmaajo uusan ku darsan muddo kororsiga labada sano ah xildhibaanada hawiye waxa ay sheegeen in ay garab iyo gaashaan u yihiin General Saadiq John waxa ay booqasho ku tageen guriga uu ka degan yahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan Shirkole waxayna sheegeen in mar waliba ay diyaar u yihiin in ay garab iyo gaashaan u noqdaan General Saadiq John xildhibaanada gaaray guriga Saadiq John uu ka degan yahay Shirkole ayaa waxa qayb ka ahaa Mahad Salaad Odowa iyo sidaas oo kale tiro xildhibaana ah oo ku matalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna sheegeen in mar waliba ay diyaar u yihiin in ay daafacaan hadii weerar lagu soo qaado sidaas oo kale tirada xildhibaanada ah ayaa Saadiq John waxa ay ku wareejiyeen hub iyo sidaas oo kale saanad ciidan oo ay ku sheegeen in uu u baahan yahay inuu isku difaaco markii weerar lagu soo qaado Mahad Salaad bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga waxa uu ku soo qoray qoraalo kulkulul isla markaana uu kaga hadlayo weerar habeen ka hor lagu soo qaaday General Saadiq John waxa uu sheegay in mar waliba ay diyaar u yihiin in naftooda iyo maalkooda iyo dadkooda ay difaacaan waxa uu sheegay in waqtigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo gabagaboobay Muqdisho waxa laga dareemayaa saansaan iyo dhiila colaadeed xilli qaar kamid ah midowga musharaxiintu ay kala dageen qayb kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dagay xaafadda Mirnaayo waxaana ka soo guuray Hotel Jazeera
waxa uu sheegay in wax wada hadal iyo waan ah ay soo dhamaadeen halkaasna uu degay in naftiisa iyo maalkiisa uu ku daafaco waxa uu madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in muddaxileedkiisu uu dhamaaday uuna diyaar u yahay in dalka xoog uu ku sii hogaamiyo madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in taas aysan marnaba suurtagal ahayn in wadanka si xoog ah lagu hogaamiyo madaxweyne hore sidaas oo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu degay aaga fagax waxa ay si isku mid ah u cambaarayeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidaas oo kale senator Muuse Suudi Yalaxow ayaa waxa uu soo bandhigay tiro ciidan ah iyo gaadiid dagaal waxa uuna sheegay in uu ku garab istaagayo midowga mucaaradka guriga uu ka degan yahay Karaan Muuse Suudi Yalaxow ayaa waxa uu ku soo bandhigay tiro ciidan ah oo military u badnaa iyo sidaas oo kale gaadiid dagaal waxa uuna sheegay in markaas uu ku garab taagan yahay midowga musharaxiinta ciidankaasi aadka u faraha badan baraha bulshada gaar ahaan Facebook ayaa waxa la soo dhigayay qaar kamid ah sawirada iyo sidaas oo kale gaadiidka dagaal uu markaasi soo bandhigay Muuse Suudi Yalaxow Muqdisho ayaana aad looga dareemayaa sansaan colaadeed ugu dambeynna gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar ayaa waxa lagu eedeeyay in uu difaacay General Saadiq John kadib weerar habeen ka hor lagu qaaday waxaana la sheegayaa in haatan la qorsheynayo in sidaas oo kale weerar lagu qaado gudoomiyaha degmada Daynile Jacfar wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Jacfar dhigiisu uu dareemay weerar in lagu soo wado isla markaana uu haatan diyaar garow sameeyay qaar kamid ah xaafadaha degmada Daynile ayaa waxa lagu arkayaa sawiro laga soo qaaday in Jacfar uu sameystay aag dagaal si uu markaasi kaga hor yimaado weerarada la qorsheynayo in lagu soo qaado tiro gaadiid ah oo dagaal ayaa waxa lagu arkayaa qaar kamid ah xaafadaha degmada Daynile isla markaana wararku waxay sheegayaan in Jacfar oo ah gudoomiyaha degmadaasi qaybna ka ah gudoomiyaasha ugu ciidanka badan degmooyinka gobolka Banaadir uu haatan diyaar u yahay in uu isdaafaco isla markaana uu ku biiray midowga mucaaradka isla markaana ka hor yimid muddo kororsiga uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamana waxa uu sheegay in mar dambe aysan qaabili doonin erga ka socota dhanka madaxweyne Farmaajo qoraal uu bartiisa gaarka ah ee Facebook uu ku soo qoray ayaa waxa uu ku yiri sida tan Farmaajo isaga irdaha u soo xirtay wada hadaladii doorashooyinka kadibna hogaamiye kooxeed noqday ma jirto cid xiisa qabta la kulankiisa dawlad goboleedyada qaarkood bulshadii rayidka iyo waxgaradkii ayay la tashteen kadibna golayaashii wasiirada iyo baarlamaanka ayaa go'aanka Farmaajo isaga irdaha u soo xiray wada hadaladii doorashooyinka kadibna hogaamiye kooxeed noqday ma jirto cid u xiisa qabta la kulankiisa ayuu yiri dawlad goboleedyada qaarkood bulshadii rayidka iyo waxgaradkii ayay la tashteen kadibna golayaashii wasiirada iyo baarlamaankii ayaa go'aan ku diiday muddo kororsi waxaase isweydiin mudan dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed yay la tashteen markii ay go'aan muddo kororsi ah Farmaajo ku taageereen bulshada rayidka waxgaradka golo wasiiro iyo baarlamaan ma lahayn miya mise dadkoodii ayay ka arkeen go'aanka iyaga jeebkooda ku sitay ninka dulmiga wada iyo kan u suura geliya kalama sokeeyaan ayuu qoraalka raaciyay ka uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook daawaday halkan waa xogta dalka guud ahaanna halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen channelkan waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqatay channelkan in subscribe aad noo saartay isla markaana gambaleelka aad furtay si alaaba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku soo baahino sidaas oo kale saaxiibadaadna waa u sii share gareyn kartaa haddii aad ka hesho xogta aynu halkan idinkugu soo gudbinayno waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga iyo sida alaaba aad ugu xiran tahay halkan waa xogta dalka